dhammaantiin marka ugu horeysa waxaan leeyahay hambalyo bilowga tababarkan qiimaha leh aan rajeynayno inaad xilli dhow ka qalin jabin doontaan barnaamijkan maanta aad u timaadeen ee tababarkani wuxuu qayb ka yahay qorshe lagu sii adkaynayo amniga deegaanka oo xidhiidha waxaa tiinkii ugu horreeyay laakiin saddexda bilood ee soo socota insha Allah haddii la yidhaa tiro intan leeg oo laba round oo dambe geli doontaa jira idinku waxaa tiinkii koowaad tiimkiina maanta halkan jooga iyo kuwa jooga koolo ama gobolka Liibaan ku tababaranaya maanta idin furmaya qorshuhu waxa weeye in amniga deegaanka la sii adkeeyo wada shaqaynta ciidanka booliska iyo ciidanka maleeshiyadana la xoojiyo shaqo qaybsi cadna loo sameeyo oo gudaha amniga waxyaalaha yar ee goldololooyinka ciidanka inta badan mashquuliya badankiisa idinku aad ku filaataan ciidankuna uu noqdo ciidan shaqooyinka kale ee muhiimka ah xiriyohiisii iyo wixiisii intuu loo diyaariyo u diyaara oo kolba caqabadaha yimaada ka jawaaba sidaa daraadeed hawl aad weyn baad qaban doontaan wad ogtiin xuduud dheer buu deegaanku leeyahay oo aad u ballaaran oo dalka jaarka aan la leenahay hal safar badan oo aaga ka soo socda ayaa jira ama haddaba ka taagan waxa kale jira baahida amniga ee gudaha way sii badanaysaa shacabku sii tarmaya muxuu ahay waxyaalaha la isku qabsanayo way kordhayaan shacabka magaalooyinku sii kordhaya marka waxa loo baahan yahay cudud amni oo ballaaran oo dhulka faraha badan dhammaantood sidii loo baahnaa u joogta meelaha qaarkood waxaan ku qiimeynay in goldololooyinka dhanka amnigii ay ugu wacan tahay ciidan yaraan meelaha qaarkood markii qaarkood lagu arko marka taas si ay meesha uga baxdo waxaan rajaynaynaa tababarkan hadda marka uu dhamaado iyo kuwa kale ee soo socda in si buuxda meel walba dhaqdhaqaaqii looga reebay saacadii la rabo looga samayn karo taasoo kor u qaadi doonta natiijooyinka iyo maaragtay guulaha xagga amniga aan ka keenayno marka dhammaantiin waxaan markaa idin leeyahay hambalyo waxaad tihiin dhalinyartii deegaanka waxaad wax u tababaranaysaan waa inaad ilaalisaan shacabkiina waxaa la idinka rabaa ka go'naansho iyo niyad inaad tababarka ku qaadataan dhammaantiin waxaad ku noqon doontaan goobihii shaqo ee markaa ka timaadeen waxaan rajaynaynaa in tababarkan aad si fiican uga soo bixi doontaan oo aad tusaale u noqon doontaan kuwa dambe ee imanaya laftigooduna inay maaragtay ay iyaguna yimaadaan oo ay soo qoraan waxaynu u baahannahay amniga deegaanka inaan sii xoojino waxaynu u baahannahay tababarkaasi maanta inoo furmay xilliga loogu talagalay si uu ugu dhammaado dhammaantiin inaad maaragtay kaalintiina ka ciyaartaan xukuumad ahaan annaguna wixii loo baahan yahay oo dhan daryeel iyo agab ah waa la soo dhammaystiray waxaan rajaynayaa inuu guul ku soo dhammaado tababarkani waxaan u malaynayaa ciidamo aad u fara badan inaynu ka heli doono muddadaas gudaheed tababarka xigana markuu kan dhammaado intaa ku hor shaqadii inta la sii qabto inay isku xigaan oo aynu helo cudud amni oo xoog leh oo shacabkeenu nabadgelyada maanta haystaan ay ku sii haystaan cadow kasta oo dhan kasta ka yimaadana ka difaaci kara tababarka hadda aad qaadanaysaan waa bilow goobihiina shaqana tababar dheeraada ayaad ku sii qaadan doontaan haddii alla yidhaa dadaala deegaankiinnii ayaad u tababaranaysaan amniga shacabkiinu gacantiinu ku jiraa idinkaa laydinka rabaa inaad dadaalkeeda iyo niyadda la timaadaan xukuumadduna dhan walba wixii loo baahnaa way ka soo bixi doontaa waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu